hoosta dhidhiyay sidii goosha sidii galowga dhilooda dhacaadiidku wadaale dhawrtada ka weynaada muruqiina dheefaysta dhidibkiina maaraysta dhambalkaygu waa baaqe deftiisu waa guule barnaamijkan iyo waxa uu ku saabsan yahay iyo cidda soo qaban qaadisay waxyaro dumar haddii aan ka samayno waa urur la yiraahdo Somali Dialogue Center waxaanu macnihiisu yahay xarunta wadahadalka Soomaalida waxaa iska laha fikirkeeda wariyaal Soomaaliyeed oo ku kala nool daafaha caalamka waxaan ugu talagalnay barnaamij ama dadka Soomaalida aanu ugu talagalnay inaanu ku wacyi gelino isla markaasina aan soo bandhigno dareenka dhabta ah ee dadka dhiban ee Soomaaliyeed ee qurbaan ku nool waa barnaamij Soomaali u furan waana barnaamij laga hirgeliyay wadankii iyo waliba adduunka meel walba oo Soomaalidu ay joogto inta badan waxa aanu ku hawlanahay barnaamijyada la xiriira arrimaha bulshada oo ay ugu horeyso in dadka loo sameeyo lana soo ogaado xogtooda dhabta ah dhibaatooyinka ay ku qabaan qurbaha oo iyadu noqotay dhibaato ka badantii wadankii ka jirtay waqtigaas ka badanna way naga istaahishaa inaan u horno mudanayaal iyo marwooyin iyo maqaawirta sharafta leh ee barnaamijkan ka wada soo qayb galay mar kale waad ku mahadsantihiin ajiibitaanka ama ka jawaabidda caasimada leedin sameeyay inaad barnaamijkan dantu noogu wada jirtaad ka soo qayb gashaan sidaad la socotaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo bulshada Soomaaliyeed statistics kasta ama tirakoob kasta oo la sameeyo ay ka maqraati kacayso in boqolkiiba 75 ay mujtamaca Soomaaliyeed da'doodu ka yar tahay 30 jir ama da'da 30ka waa boqolkiiba 75 mujtamac ay shacabkiisu ka yar yihiin da'da 30 jirka waxaan dareemi karaa bulsho kastana waxa uu ah udub dhexaad lagu cabiraa ama miqyaaska u ah cabiraada inay bulshadaas ay tahay bulsho fashilantay ama bulsho guuleysatay waa dhalinyaradeeda marka dhalinyaradii Soomaaliyeed oo mujtamaceena intaas ka ah hadda la socda markii la leeyahay 30 wali da'dii dhalinyarada waxba ka dhiman oo da'da dhalinyaranimadu 40 ku dhamaataa sida ay u badinayaan dadka arrimahan ka faalooda 40 jir ayuu qofku dhalinyaranimada kaga baxaa inta badan marka iyadoo wali dhalinyaranimadii dhamaanin oo 30 lagu joojiyay bay hadana mujtamaci waxay ka noqdeen 75 mujtamac kastana muraayada laga eego inuu guuleysanayo iyo inuu burburayo iyo inuu hormarayo waa dhalinyaradiisa marka waxaynu caawa isugu wada nimidinaynu qaybta muhiimka ee bulshadeena kamid ah ka wada tashano la ilaaha ma hadda iskale kulisiye kulligeenba waxaan ilaahay subhanahu wa ta'ala ka rajeeyay insha Allah ta'ala marka kan caawada ka wada dhaqaaqno in aanu ku kala tagno insha Allah ta'ala talooyin wanaagsan iyo fikrado suuban mujtamac burburay ama mujtamac burbura ummadaha dhan waa soo maraan xaalad noocaas wax Soomaali maaragtay u gaar ah ma aha marka qaarkood yeenan aad isu jirdin inagu oo inaan aad isu canaanan dhibaatada dalkeena soo martay dadkeena walina qeybo kamid ah ku jiro dadyo kala soo maray oo inala mida marka taas wixii dhacay maxay u dhaceen inuu raahno waa khalad ilaahay subhanahu wa ta'ala nagu qori laakiin ilaahay nagu xisaabtamo doona waxa weeye ogaata wixii dhacay maxaa ka qabatay wixii dhacay waan ogaanay burburku wuxuu keenay waynu ogaanay dhibaatada in qabsatay waynu ogaanay cudurrada haysta waynu ogaanay su'aashu waxa weeye dad buu ilaahay naga dhigay maxaan ka qaban tamaantii oo qiyaamaha maanta aynu caawa dhimano ilaahay subhanahu wa ta'ala na weydiinay waxa weeye adigu dowrkii aad lahayd ee kula gudboona maxaad u qaban weyday maxaad qabatay maxaad samaysay kulligeen waalid baynu nahay walaal baynu nahay abtiye adeer baynu nahay eeday habaryar baynu nahay aweeyaynu nahay dad mujtamac ku dhex noolayeen kulligeenba marka maxaynu qabanaa doorka ilaahayna siiyay qofkaan u dhalay iyo kan abtiga u ahayn iyo habaryarta waan u ahayn maxaynu u samaynay mujtamacan guud ee ku wada dhex noolay ilaahay subhanahu wa ta'ala mujtamacu naga dhaliyay maxaynu u qabanaa
dhalintaasaan anigu يعني استاتستيك أنا هي واحد تاعي أرجع حسوا مركي اللي يراهو شوف سياسة تبود عالم كذا نقول طبقة لنا تيروريزم مركي اللي يراهو دتك أبو بدن أو تيروريست سمايا ودتك ودا شيء أما كشقية محادثة اللي لا يراهو محادثة الطرفين اليمينيين قرب كم مدك سؤال الديمقراطي وحلا من حاجة يكسي حاجة سؤال الديمقراط يقول حاجة يكسي حاجة مدك أيها أبو بدن تيروريزم يوروب كصمية أما دد هادلين أما هو عنصريين أما مساجد هجوبين أما دد هادلين ما هددك صومال ما دد مسلم كمان دد صومالي ما والله باطل يصدق محمد ترنا عروتنا ترنا صوما بقول بجارسي شاب بقول كذب marka terrorism ay lagu sheegay laakiin dadkaasina xataa shanta boqosan sheegayo waa in la isweydiin maxay ka xanaaqeen maxaa u geeyay wiilka degan hamar kullan ama deganaa rinkibi inuu intuu tigir goosto diyaarad raaco turkiga ka dego laadiqiyada ama tada xalab iyo xams oo ka dagaalamo maxaa u geeyay maxaa ka dambeeyay waa dood meesha taalo weey هذا ما يسكتوا عندما يقصون نقضوا مسؤولية إننا نصار ولا ليا ونتان دون أن كابل إن شاء الله تعالى سياسة دقود عالم وادي قبضيسان سياسة الصومالي وادي قبضيسان الصومالي وادي قبضيسان الرماس صوت واحد يكون ترى كريم جدا لكن والدهان أبانا هي ولا البانا هي نصوماليات بانا هي وقوي الصومالي كسر شيء ده ضد صوماليات كذا شيء فكرة أنا أن يكسو كريم إن شاء الله تعالى وحي تهي إن أنك هذا المسؤولية دينا إن صارم ديبو أغنو قريهن مثال باجر لو رجل إنك استوق خطرة عظيمة ناقم بقدم بيسا ولكن كسو قارسيسي ويل كستو أو ساقضي أو سكول كل عاكد عنا وحاكدم بيئون قري كسو دحواي دوركيس هيراتو أنا هو ينادو دم يقول قوليه لكن قريبه إنه الدم يقولنا واحد دم بيقوله فورين إن كان لفوري إلا بدل الله وصحته إلا لو ياشوا كده حكى واحد لما حكى دعية مدقي بنتلانديو يجوا بلد يعرفوا ترى بدل وصحته بس هو قال كتان ليه ده واحد تستكتان بناك بيتصيروا هرتاد فريست واحد قدم بيا مؤتمر كان إسلامي قال لقبانه إيه لو هذا لا يقف صومالي أنا فاهمي الصومالي أنا فاهم اللي هذا لأن يوجد دلين تاسين بدني بدن كود إن يسمى واحد الصومالي فهمي كرين شيخ وشيء شيخ وكهذا لا يو الرماء يجا عن حسين محاضرة كصاب سنة أبوه يا وهو ديو أي يدو محاضرة يقول هذا مش واحد دم بيجي إسكاله والد كبر بود ذكر الصندوق كتبه سكول كتبه اللي يقول كابو حمود دلي وشارك كبر بالرباح أول كابو مركب بس كشري والسعودي قفوا أفلقاتي أول كابو امتحان كيبود البيان ما حسابته هو كل حاجة السوق فرح حسن وقص لاهية وكل إسكال هذا لا شيء هذا محاولة كان حروت أو تريسو محويان ولا كمان قبل كريم حامل سمعنا شعر رنلي هو يسوع مارد أو شن كير بشامة جبتو رالي هذا ولا ينا كو عند عشر عرورة طبعا عرورة يلا بقربان دقنا هي ماشان كو صوّد قرر كل جوا يقولنا لبعض قوة بديهي بواس قصر كاسر وين دتكو أرداء سيحاني مركزات طبعا كان دشير طبعا ولا شاد دشير كلون ولا يقولوا وبريس شيء لعني سبحان سؤال لو كله لكن مركز هذا ويل كاول بقى تنجره وكوسو هذا لو يتوك هبنيو سبحان وسو سكول تجي شكنا تجي أبا تهاي هويا تهاي محاكم فكرة مسلمين
ما بيرو فري ما يقولوا لي مسؤولية دي أنا مسكين ليه دور كأنه هيا راضو هوينادو مسؤولية هو إنك نصارنت هذا كي يوحنا كسوق نادي تبغى ضم بقدم بين دون عارف كذا وبدنا دورنا هذا كان بضيع من دوني أنا كسوقه الدور كله نقربه وأنا أقدم dad wanaagsan baynu nahay dadka Soomaaliyeed waa dad wanaagsan waa dad fiican hadda markaan soo soconaa aabay baan sheekaysanay gaarigan ku soo soconaa xafalka shirka markii arrimaha qaabka baan ka wada hadlayay wuxuu yiri marka qofka markii la weydiinayo maxaad haysataa warjir afartan aryan haystaa afartan gaariga waxaan ka masruufaa hooyada afar caruura iyo hooyadood كو مرتدنا وكسورة قف يضيف إيما ذو مرتيه إيما هذا نفر وقلا وليبا أفرتك حبه تطمع حسن معي ما أنت إله ملايين من النسي أيوتوني كلا دقة الدارة على بس يقوليها الله يستو يذهب قال لك شيء مت صومالي صومرت ما هي ولقينا هكذا إنك تاجن هاي إن عروتين أنا ودلي يجيلكم بحجامك لعقت محل نظرت تنين شفت المدوني ولا ريال لكن تضويت وصار هو حق شقيني والد لكل مي والد كان تضويت وسكور لكل مشري والد هذا اسم الله والد باكر ورد اسمه كان يقول مشري الساعة أفري طبعا شيء وترني سمك سوق ليه إذا كم حكى واتن معناه اللي يقرب أنا كقبته ومعلم كيسية بيسألها على قربه وهيس وأبيس. أنا أقول لنا هاي الإسلام ورد بالين إن مدن السيد ده يلا يدور قبل حنا لا يدور رفع وما يدور. أديك هو يدرس وما يدور حيو بحر حيو حرام بدل. كنت منع أها إن ده نجمع حتى من نجمع استهشين دم بالمسار. ويكستاني إن هي دو حدون ساين بديها مبرسنا نظام المهو في العمل. شكل هو هيستوي هو حط الجرب هيستار هذه أي هيسنينا نعيب على جرب هيسن موضوع قبي غير كنين كيلو تلقى مبيد الحسوبة أي صوب الشيء أنا يعني هو يدو الصومالي من هاي وضع كتيمات الشطبة كلها وحكلها يعني وح مجرد ساي أي نفلد إني بقى يكمل محل كاملة الميلاد بقى كاملة لقد بقى كاملة حتى كلر كي ذكر يقولون الله هو وقت يقولون ذكر شاف بيننا وحكمنا دقالي وحلقة يا با هو يدينا نسلمتي بشقيسان وحياة بدن بقى حتى بقى كينيا فكتور الفربدن بقى كينيا إن هو يدي سوماليين ما أنت هدي لا تريد دمرك سوماليين intee ayaa runtii ay maskaxdoodu baan taagneen waa number aad u fara badan waan hawlaynaa inaan halkan kaga hadli karayno statisticskeedina la hayo marka waxa weeye waxaan jecelahay hooyo kasta oo Soomaaliyeed oo halkan fadhida iyo inta meediyada iga daawanaysa inaan baaq runtii aan gaarsiiyo oranaya horta marka ugu horeysa ka baqalina systemkan ay ku jirto waxa weeye لما قال بين الدجنين يقولوا لي واو لما قال بين الدجنين لكن حتى مركي هالكلام من البداية ما قال له ما في الله المهيري سويدش كانوا والمها كلاس كلا دينا يا كاسو أنا تاسا كان تاني عروتي دبدو بودان وحصو حضان كل راديان مرحلة كستة وأنا دقاني وحدي عرفتي ما هو حكي أنتو دقاني رادينية مدام أنا أبيه وكالنتي لو طلعت لي حقيقة دي أنا كصابحي برسنتج بينهم كترضي هو يدينا عائلة عديد أما عائلة ربطوا إلى جودة كذي حيسو لدقارها سوشيال كلا يدادو دايان كاكردي نقول يبدو أكيد ينقطع عليها ولا إلى كي رايها كان رنتي كان ما يسكول كوحيدي سوشيال وحوي ومرحلة قدم من المرحلة
waxaan jeclaan lahayn in hooyo kastaba ay isku daydo ilmaheeda yani sidii ay iyadu ay u badbaadin lahayd taasoo ah in aynu wadanka dhex galo dad maryo badan baynu nahay dad waxaynu nahay agressive waa sida iyagu naga qabaan dad waxaynu nahay arrintii nadaafadoodu fiicnayn dad waxa aynu nahay iyagu aan isjeclayn oo qabiil iyo frenino iyo land iyo dee magacyo fara badan u baxay ayaynu qabaan marka dhibaatooyinkeena iyo halka laynooga soo dhacaya innaga ayaa gacanteena ku keenay taasaana la rabaa in aynu inagu intaynu gacanta iswada qabsano dadkii waddankan idinka soo horeeyey runtii aad wax weydiin kartaa in aad maxaa la yidhahdaa wax weydiisaan waxaan rabaa in aan hadalkayga soo gabagabeeyo oo runtii de waqti badan layma siinin waxaan ahay xildhibaan golaha deegaanka runtiina waxaan fadhiyaa meesha Soomaaliya iyo go'aanada halka lagaga qaadanayo waxaa laynoo qabaa especially dumarkeena Soomaaliyeed inay yihiin dumar runtii adag oo gabadh soo Swedish oo ma garanaysa dawladda la fadhidaabeen saddex caruur ama afar caruur haysaa sida idinku adag tihiin ee ilmihiina u daba socotaan ma jirto barnaamijkan inamadan soo diyaariyeen jabtarra fara badan u yeelanaya wuxuu yeelan doonaa yani jabtar baan usoo qaybin doonaa in hooyooyinka mar focuska la saaro in caruurta mar yani waxa weeye bilow marka waxaan idin salaamayaa wixii su-aalaha aad qabtaan waa weydiin kartaan intaan la hadlayo qalad haddii kasoo baxa aad baan idin raaligelinaya runtii aadna waan idin jecelay dhammaantiin marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan idhaahdo hooyooyinka Soomaaliyeed waa hooyooyin adag oo sharaf leh runtii hooyada anigu hooyooyin badan baan la kulmaa shaqadaydu ma aha Soomaali kaliya kama shaqeeyo hooyooyinkeen way ka horeeyaan dadka way ka adag yihiin way ka dadaal badan yihiin way ka karti badan yihiin laakiin waa dad ciilan waa dad garab la'aan hayso waa dad u bartay wadankoodii habreeri joogtay eed joogtay dar jooga ayay joogtay in caruurta la koriyo waa dad ku soo dhacay banaanka waxay u badan yihiin waa qiyaasi kartaan inta soo sano meeshaan ka shaqeynay every day waxaan la kulmaa hooyo ama qof dhalinyaro ah inta qof aan la kulmay qiyaasi kartiin waxaan la kulmaa marka 95% hooyo ina fahamtaan wax ordayna hooyo tahay nasiib xumo abayaal badan lama kulmo iskuuladu way cabaadaan waxay ka cabaadaan hooyo kaliya ordaysa hooyooyinku way dadaaleen qof walba ibn aadanna wuxuu qabtaa sida uu yaqaan reference buu leeyahay maskaxdiisu waxa uu hore u soo bartay wuxuu soo arkay way aragnimadiisa aqligiisa cilmigiisa isagoo kaashanaya dabadeedna intaas uu isticmaala wax kale ma haysto meel kale ka keenaa ma jirto mabaadidiisa diintiisa afkiisa inta uu hayo hooyooyinkan marka waxay u badan yihiin hooyooyin caruur badan dhalay waxbarashada inta badan meel dheer ka gaaray hadday ka gaareen aan ku camal falanin oo ilmo aan korinay inta badan markii wadanka la soo galay dhowr 20 sano ka hor buu meelaha waxa wadanku iska fududaa oo iska qaboobaa wadankan dhacaga la iska qaadan jiray hooyooyinka caruur ay iska dhaleen jaaniski wuu seegay oo maaragtay waxbarashada hadda sida dadka hadda soo gala waxa moodaa inay ka faa'iideystaan dadka hore jubka ku dhacday oo isla markii waxa arkaysaa inay xafiiska shaqada waxay ku leeyihiin siiban dhameey oo baan dhameey way socdaan waxay rabaan inay waxbarashadii ka qasaatay hore u socdaan inagu laakiin waxaanu u nimi wadan qabow markaynu imaanaynay caruurahan hadda galaya arrimahan ma aha caruura yimid wadanka waxay u badan yihiin caruur wadanka ku dhashay marka hooyo kaligeeda marka subhanallah lix culug ma kala gaarto mana kaafin karto hadday kaafiso inay dhar qurux badan u soo gado hadday kaafiso inay cunadii u kariso hadday kaafiso in dharkii u dhaqdo base maaragtay needskii way buuxisay cunadii jiifkii dharkii way buuxisay laakiin ma wuxuu u baahan yahay mentally in laga dhiso yaa dhisaya mentally
يا آوي مركب يا كل شوية مسكحده إلا مسكحده معها إسكول كان كلي واحد وكسبرته ما يبغى نقول لح بان هيا لبضي وادر ممكن يسوق لنا ودالنا عشرة بنوكرنا ورجع مس خير ذي لبان له ورجع مس أمتي في جنب بحر رجايا عندي بان كرنايا وأوصل لقي ساكا أنا روحي إسكول لا يدرى مشقة روحي جوان قريرة يا ودالنا هذا الما أوده marka wiilkaygii 17 jirka ahaa wiilkaygii yaraa haddaan saddex helay yaa uu islaamay wiilkaygii walaal ma haysto aabba ma haysto adeer ma haysto aabbihiina dhaqaaq yaa uu islaamay ma nihin dad is-organisaareeyey adduunyada oo maaragtay ururada kaleeto waddamada kale waxay leeyihiin ururo ay aaminsan yihiin dhibaatada inagayna haysatee qaybiska iyo qabiilka cudurkan inagu dhacay dadka kuma jiro waa waddan taasi waxay u fududaysay inay yeeshaan meelo yaryar oo ay dadkooda luqadooda ku baraan dhaqankooda ku baraan oo ay keenaan waa dadka ajnabiga ahaa kuwii waddankan u dhashay daagiska markii la joogo bay waxay leeyihiin din doctor yilar min doctor halkaas waxay ka raadinayaan inay ilmo saaxiiba u helaan markay arkaan in waalidkaanu yahay mid iyagoo kala ah oo nadiif ah oo shaqaysanaya waxay leeyihiin min doctor kan bon trefas waxa kale karta waxay rabtaa inay reedan dogs ka soo bilowdo oo ilmihii isku wadaan ilmihiiba isla cusmayaan xaflada isla geynayaan dabaale isla geynayaan waa hab lagu difaaco ilmaha oo lagu ilaaliyo inagu ma leenahay ma lehin ilmahaasu wadaya iyaga ku bilaanada isu tagaya waxay ku darayaan isku program ay ana caawa soo qaada adigu caawa soo qaad waxay ka soo markay ilmuhu daagiska jireen bay iska diyaariyaan in 17 auditorium ka taagnaado inagu iskamayna diyaarin ma ogeyn waynu dhex fadhinaa kaliya baddi baynu dhex fadhinaa magaalada Yenteboor oo magaalada anagu aan deganahay inay tahay magaalo ay dhowr jeer dhacdooyin kala duwan ay ka dhaceen oo ku saabsan dhalinyarada Soomaaliyeed oo dhibaato dhexdooda isku geysanaysa iyo ayaga laftirkooda oo dhibaato loo geysanayo waxaad la socotaan in dhowr jeer hore wiilal Soomaaliyeed u dilay xaafadaha Beerqoon Biskogan Angred iyo magaalada bartamaheeda waxaan la soconaa in wargeysyada waddankan ay inta badan qireen ama ay sheegaan in dhalinyarada ugu badan oo waddankan ka tagta ama Sweden ka tagta oo meelaha kala aada inay ka mid yihiin dhalinyaro Soomaaliyeed oo reer Yenteboor ayagoo ka dagaaltaga meelo kale waxaan la soconaa in si guud saxaafadu ama qolyahan magaalada ama kaamunka haysta ay si guud arrimahaas ay u dayeen inay Soomaalida kaga wacyigeliyaan haddaba waxaan rabaa inaan dadka indhaargaradka oo meesha jooga aan weydiiyo maxaa sabab u ah in dhalinyarada Soomaaliyeed ay xilligan oon ognahay in meelo badan horumar dhalinyaradu ay ka taaban karto la gaaray in haddana dhalinyaradeenna reer Yenteboor ay si gaara barnaamijyadan dilalka iyo xagjirnimada loogu tiriyo xildhibaan waa beri baan su-aashaas ku horumarinaya بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه وسلم مركوارهم أريد أن أقرأ ما هو وحنا قد هذي بالمكان مركا كيلو في كيجي كان بالوين تبع سواء من وصل لنا حتى مبتكنا لكن أسباب كده كان وجه يروح بدأ كان وجه إن مركز سنتي الموسم كل يوروب في ملايكم استجمات يصير وحلا يراها نسكت سوون أكثر ومدينا دوسنا كوبا وحال كل موضوع شقيستان بقول سقاشة تصمش شقيستان شاف كيف هنا دوما كوبا مش شقيستان ولا كويستا استجمت سير كونسا أنا تزوج جرتا دور لنا يرى وجه نوع النقدين تاني واحد كيني سنة ومشي متجهل كيني أكون درا كيني سنة قف واحد يرى أقوم كفر ما هي سقاشة سيجي هذا واحد ترك الوفاء ورنته المياه ممكن فارق ليه قف كسر شو كريه وحام فارق قف كنا مع شو كريه مرجع ما نقدر نقول عقله وحافظ قوارك
ولا شيء يسي ونلعب تارا ونصاص قروي شو اسمه أمانة الشيخ بين الأردوغة وكذا لا يا المهم مسكينة شنو الدوغ قال لها مركا دبعتي مركا شرت تاسوي أنا ما أسمع وين النقالنا إن كهر طبلو وعروتين حقي واحد كينين واحد قالت اليوتيوب كتاي واحد قالت الميكرا تاي لكن إن لا صعدوا إن هو هاي لا إيجو إن لا بارو استيميتسري كان اللي قدامي خاصة كنا نجد أو هنشعل إن شاء الله تعالى أنا أنت اللي حسمسي ما أنت قف كمدو واستنسيب واضح ودي قف عدالة وحال واحد لا تقف ودي قف عدالة تقول ما دام سكت حق هذا السوق عند القدران مريض كيف بحسن لك عربي يقول لك كمدو واستيميتسري إنه مو نفسه مركز جزاكم الله تصور نقول خاصة والله الله ما حنقصر أكثر ما أقول هاي السؤال سبحان الله لنا محمد آدم بل أرتديس كجواب محمد بسم الله الرحمن الرحيم طبعا كنت لا يا مركب بعد سدوا حلبان كشاعي بحسوا هنا بينه مركا نبتة هنا وحوين أي نكرر لما صومالي كلي قصيصة أنت أي قصيصة هذين أمي ما نصوبها الحكي يعني كو أولنا وحوي ولا قاعد لكن الكوباد وحوي وحكون دريساني تربيتي وأساس كأهيد عنك كبرين في السي أنتو يرى حيال باهي بضمه حيستعنك ممكن نتاكل دريساني نتيجة صاروا قليل ما نسأل كتاسمان لا يحي مرلبات ما أنت وحلاقها لي مسؤوليات دي ممكن نقادنا وياه أو دينتنا نسلنا بيجانو ليه قف كستوحى الراعي محل يرى هذا شيء قاسنا وحاوي ولا حساب كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته مركا والدين تكون مسؤوليتنا إنه قادم مرة إنه كبر إنه بلوغا إنه حسحنه يعني هذا التولى وحد عكنا مركا نتيجة دي إنه في عناد هذا مركا ما كبر دريسني تاسو كانت مركا اللي يردي إنه وحيالك الدوان هاي قلين وحرف طبعا نقطة أجد ما نقطة أما دنبيك لأنه كل عين تاوى من الكوبات كل كلا وعن سلاح يحاول اللي يردي وحوجا كلي ما أنت برشدي قيب كقافي صارت برشد إنه تجنّ هاي وحالها اللي هنا مسكوتين يسكولقن يسكولقط هاي لكن حيال ضد وأساسيات كنرش أن نسكجم من هاي بعشرة والسدا إنه كفى إليسن كرو لكن كمان إنه فإليسن قيب وكفى إليسن ما به كرنو كمان إنه ذا فإليسن لكن قيب تكله وكفى إليسن معناه حقاتين والضدي كله ما كان مسلمنا إن شاء الله إني مارك كسر نقلان تن قدام بيسون أسلايا تصالح ونويريه تصالح قفك عن كل ديان لهاي ما أنت كو إن بدو حلقة الله يده قفك والدين سكو ديان يا نوريجي وحلو مسؤولي تري وحلو تربية تري هذا كله جسوا بنا برشدي وقفك في سنة يا وكل ديان مركا إن شاء الله عن سلايا هاي ده اللي يرد إني تسألوني في عنها هلام كسر رمضان وكله وضد أي كل ديان كران ومنطقة نلش فوق وريستي هنا أركان ثانية وحيو كان كذا هنا حوالي الجبكة iyo ama maxalli waxyaalaha tirada badan oo maanta la tirinayo qofna uma fiicna laana qofku wuxuu u baahan yahay wax inuu tiigsado marka insha Allah isaga baxayaan safiya isla su'aashi xaqeena u badkeeni inuu iminka ay darooga iibiyaan la isdilo oo inaga lafteeni mashaakil badan ay naga dhaxdhacaan waxa keentay taa baahi fara badan oo qofnaba aanu indhaha ka qarsanaynin waa economy ودقالة حوي المهيرة وحتار قرينيا سيدي ودقالة كهيلها في المدى يمكن نمدو إنه تسجل هدي الهستوري صلا سعتان معك خمستين ميديا ده حل يسكت المال بالله صار عي العكتي لقيف سنة يبلا مهي لقري أي اللي يسكت له مكتا هدي أي رنتي أي أبويناتي قدب كوبوين إنه دقالية هاي هل كانت جوابتي إنك يسوسيناي إنه كبح وحوي ككعنو محلين هذا فردقة وأي مشقي صنّو سمرك عرور تاني أيوه هلا نقالة أنت بدنا عرور تاني وحبابية عرور جانب وأي كنتي صومالي تدقنوا مالها دروغو دي نوغو إنه واتشاكا لكن عرور تاني هل كمان تمريان
kuwaan hayay shalayta soo galay qaarkood ka sheekeynayaan waxyaalaha qaarkood oo aan dileema oo lagu ayaan dareen weyn weeye marka walaal intaasaan runtii aan cilmi ahaan uga jawaab lahaa su'aalaha inaan iloobin wax maaragtay haddii la dadaalo ilmaha la dadaalo qoralkooda la dhiso oo ay waxa ay su'aalaha ay qabaan looga jawaabo diinta la baro si sax loo baro wadaad aan ilmihii afahmayn hadduu qur-aan u dhigo uu waxba fahamsanayn waxba barana soo maha wadaadka daayka hadlaya walaalkay waxa waaye wixii cilmigan walma waa inuu fahmaa إبراهيم عادي عاد بقى ما صنتهاي عادي كالسن تي في برنامج كان وحسوق من قبيل أورك الصومالي ديالوج سنتر وأور أدوين ودل كان سويدن كتيرة برنامج كان وحلا لوجو مقعدري برنامج كبراروتين تبربارتا ولوجو قليه إن الينرد الصوماليات وكذا كان دل كان سويدن laga baraarujiyo arrimaha maartay waxay u fiiraan voldiga oo ah gacan ka hadalka iyo arrimaha kale oo aad u tiro badan marka barnaamijku wuxuu ahaa barnaamij si qoto dheer loogu wacyigelinayo dhalinyarada Soomaaliyeed oo dalkan ku dhaqan waa su'aal fiican barnaamij